kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walbo aad ku sugan tihiin kusoo dhawaada barnaamijkeeni xog iyo xaqiiqo aad ka daawataan jigjiga cable iyo SSTV qaybtan hadduu rabbi idmo waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda dalka Ethiopia iyo sidoo kale dad ku barakacay halkaasi iyo dawladda Ethiopia oo guulo waaweyn ka sheegatay dagaalkaasi waxay la joogaa Ilka Case oo ah falanqeeyaha barnaamijka Ilka Case soo dhawow maxamed aad ba maasan tahay daawadayaashana waan salaameynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 11 bisha November sanadka 2020 sida aan la wada soconno marar badan daawadayaasha aan soo tabinay waxa maalintii toddobaad galay dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia kaas oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka oo ay taageerayaan kuwa qaar ka mid ah ismaamulada Ethiopia ka socda iyo kuwa Tigreega oo gaar ah dagaalku dabcan waxa uu bilowday 4 bishan hadda maanta 11 ah oo ahayd khamiis xilli maartay saqdaxa ah ilaa hadda dawladda federaalka waxa ay ka sheegatay guulo waaweyn inay ka gaadhay dagaalka iyo horumarro ay ka sameysay deegaano ay qabsatay sida ay warbaahinta u soo bandhigtay oo dawladda federaalka ay sheegtay ilaa 550 askari oo ciidamada Tigreega ayay dagaalka ku dishay inkastoo aysan jirin ila madax banaan oo xaqiijin kara sheegashada dawladda federaalka dhankeeda ka imanay dhinaca Tigreega iyaga ilaa hadda ma jirto tiro rasmi ah oo ay ka sheegteen dagaalka oo ku aadan inay ka dileen ciidamada federaalka laakiin sida aan ognahay goobtii uu dagaalku ka bilowday oo ahayd xerada ugu weyn dalka Ethiopia ee qaybta waqooyi ah oo maarta ku taala deegaanka Tigreega oo ahayd meeshii xuduudda Eritrea iyo Ethiopia ay wadaagaan ciidamada ma loogu talagalay inay xuduudda ilaaliyaan oo ah goob ay joogeen ciidamo maartay aad u fara badan iyo maartay hub fara badan uu yaalay oo ahayd goobtii uu dagaalku ka bilowday sida sarkaal ka tirsan ciidamadii halkaasi ku sugnaa gaar ahaan madaxa isgaarsiinta uu sheegay oo warbaahinta shalay la hadlay khasaare ba'an ayaa loo geystay ciidamada qoomiyad ayaa loo kala qaybiyay ciidamada nin walba dhafoorka iyo xabad laga qabtay waxaana lagu amray in uu sheego in ciidamada waqooyi ay la safteen ciidamada Tigreega sarkaalkaasi warbaahinta markuu la hadlay wuxuu sheegay in 4 kooxood ay ahaayeen dadka weerarka ku soo qaaday ciidamada militariga ee dhanka waqooyi ku sugnaa koox waxay ciidamada militariga ee Tigreega ka tirsan oo goobta kula sugnaa ciidamada qayb waxay ahaayeen ciidamada gaarka ah ee Tigreega qayb waxay ahaayeen maleeshiya Tigreega oo mudooyinka u dambeeyay tababaraya tan iyo intii dawladda federaalka iyo iyaga Tigreega uu khilaaf ku dhaxeeyay qaybna waa jabhadan unaag la dhahay hubaysan ama garabkeeda hubaysan ee oramada oo iyadu ka faa'iideysanaysa khilaafkaas dabcan u dhaxeeya iyaga laftirkooda iyo dawladda federaalka ama Abiy Ahmed qoomiyadda oramada iyo Abiy Ahmed waxyaabihii u dhaxeeyay iyo sidoo kale waxa ay ka faa'iideysanayeen khilaafka Tigreega iyo TPLF u dhaxeeyay marka iyagu waxay ahayn cadawgiisa waa saaxiibka oo halkaas ba iyagu dagaalka ay ka wadeen marka afartaas kooxood ba isugu jireen buuri sarkaalkaasi dadkii ciidamada waqooyi weerar ku soo qaaday wuxuu sheegay marka ciidamada in la isugu daray maartay dil hubkii meesha yaallay in badan oo kamid ah in la furtay qayb ciidamada kamid ah oo la qabsaday oo waxa weeye maxaabiis ahaan loo qabsaday in iyaga oo qaqawan raki laga furay dhanka waxa weeye Eritrea loo gudbiyay isla markaana Eritreankii ay dhar u xireen wuxuu sheegay oo uu yiri marka kuwii ay difaacayeen yaa dharkii ka furasa u galay oo waxa weeye iyagoo qaqawan halkaas u diray kuwii laga difaacay ayaa dhar u xiray waa dhacdo aan weligeed dhicin ayuu yiri sarkaalka laftirkiisu waxa uu kamid ahaa leeyahay saraakiisha halkaas ku sugnaa ee waliba dhafoorka loo qabtay xabadda waxa weeye xilligii maartay uu dagaalku halkaas uu ka bilowday si rasmi ah muusan sheegin khasaaraha rasmiga ah oo xadidan ku aadan ciidamada la laayay iyo inta maartay maxaabiis ahaan loo qabsaday wuxuu sheegay soo kale ciidankii la laayay in maartay lagu dul ciyaaray oo haada loo dhigay iyo maartay waraabaha oo aan la aasin ilaa iyo maanta intaasi waa xogta ku saabsan weerarkii ugu horeeyay ee 4 bishan ka bilowday dhanka waqooyi xerada ciidamada ay ku lahaayeen dawladda federaalka waxa ay qabatay oo xabsiga dhigtay ilaa 17 sarkaal oo filaya daawadayaasha hore inaan ula socodsiinay markalna aan dabcan doonayno inaan ugu celino macluumaad la xiriira dhacdadaasi ciidamada la xiray ciidamadan la xiray oo saraakiil ah oo 17 ah waxa la sheegay in ay waxa weeye ka qayb qaateen howlgalkaasi waxa weeye ka dhacay waqooyi isla markaana ay dhankii xiriirka isgaarsiinta ciidamada waqooyi iyo xarunta dhexe ciidamada ay waxa weeye ay kala jareen
mid ka mid aha saraakiisha waxa weeye hadda la xiray oo lagu magacaabo generaal Gabriel Medin waxa isaga la sheegay in la qabtay isaga oo TPLF u gudbinaya ilaa 11 sanduuq oo ay ku jiraan madaafiic iyo sidoo kale walxaha qarxa oo markaasi laga qaatay xaruntii waqooyi ee la weeraray isla markaana generaalkan uu doonayo in uu ku wareejiyo TPLF si maartay dagaalka socda iyaga dawladda u dhaxeeya ay maartay ugu adeegsato isaga iyo saraakiil kale fara badan ayaa la xiray marka sarkaalkan waa sarkaalka ugu magac dheer waana ninka isaga lagu qabtay hubkaasi sanduuqa ku jira ee qaraxyada iyo maartay gantaalada isugu jira isaga oo u gudbinaya dhinacan TPLF si maartay dawladda ay ugu adeegsadaan waana saraakiisha lala xiriirinayo in ay ka qayb qaateen weerarkii iyo howlgalkii ka dhacay xarunta militariga ee waqooyi ee ciidankaas ay ku lahaayeen kuwaas waxa weeye sida sarkaalka u hadlay dhanka isgaarsiinta uu sheegay in dhibaato baan loo geystay inta kale kuma koobnay dawladdu waxa ay wadaa howlgallo iyo talaabooyin ay uga talaabo qaadayso cid kasta oo lagu tuhmayo in weerarkaasi ay qayb ka ahaayeen isla markaana ay u basaaseen nimankan maartay TPLF ah oo ay ciidamadii dhabar jabiyeen oo ay khiyaameen qayb la laayay iyo qayb maxaabiis loo qabsaday laga dhigay dhinaca kaleete waxa wararkan soo gaaraya ay sheegayaan in Suudaan oo kaleete ay u qaxeen dad fara badan oo waxa weeye ka qaxay dagaal ka socda waqooyiga Itoobiya ilaa 6,000 ayaa la sheegay in xuduudda Suudaan ay gaareen kuwaas oo maangaliya doon ah wararka qaar waxay intaas ku darayaan oo hadda maarta soo dhacaya in Suudaan ay sheegtay inay ka cabsi qabto inay soo gaaraan ilaa 200,000 oo qaxooti ama 250,000 oo qaxooti ah oo maangaliya doon ah oo ka soo qaxaya dagaal ka socda dalka Itoobiya gaar ahaan dhanka waqooyi u dhaxay dawladda federaalka ciidamadeeda iyo kuwa Tigreega Suudaan sidoo kale waxa ay sheegtay in aysan jirin ilaa ay hadda cid xaqiijin karto oo ay maartay khubaradii iyo waxa weeye diblomaasiyiintii iyo dadka kale taba ay ku adag tahay in la rumaysto labada dhinac xogaha ay soo tabinayaan ee ku aadan dagaalka waa dawladda federaalka iyo maamulka Tigreega marka si guud marka la fiiriyo waxa adag xogaha ay labada dhinac soo gudbinayaan qaabkii loo rumaysan lahaa oo ah inay guulo maartay kala sheeganayaan labada dhinac dadna uu ku barakacaya dagaalka oo ay waxa weeye dhanka Suudaan ay u talaabayaan dhinaca kale magaalada Maqala ismaamulka Tigreega caasimadiisa waxa la sheegay in sicirkii ama sicir barar uu ka jiro salahan hadda shidaalka oo kaleeta inuu maartay kor u kacay quutul maartay daruurigii ama cunooyinkii dadku ay cunayeen in sidoo kale uu kor u kacay waxa sidoo kale laga cabsi qabaa mar dhow in nooligii gawaarida lagu raaciyay uu kor u kaco tanna waxay ka dhalatay maartay saameynta dagaalka waxa weeye ka socda dhankaasi dhinaca kale xalay muddo saacada gudaheed waxa qoraallo soo dhigay barta uu Twitter ku leeyahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed qoraaladaas oo dabcan uga hadlayay xaaladda dalka iyo dagaalka maartay socda iyo cadaasiyada uga imanaya ururada caalamiga ah iyo dalal kaleete oo kuwa maartay galbeedka ay hormuud ka yihiin oo ku aadan in dagaalkan la joojiyo oo wada hadal lagu xaliyo sidii hore baan u sheegnay oo waxa weeye midowga Afrika iyo midowga Yurub iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ay soo saareen baaqiyo isku mid ah oo ku aadan dagaalkan iyo in haddii uu sii socdo ay dhibaato baan ay ka dhalan doonto ra'iisul wasaaraha Itoobiya qoraalkiisa ugu horeeyay oo dabcan sidaan sheegnay laba qoraal oo muddo saacada gudaheed uu soo dhigay qoraalkii ugu horeeyay ee uu soo dhigay waxa uu ku yiri marnaba ma ilaaweyno dilkii iyo xadgudubkii kooxda TPLF junta maartay ama la dhamo TPLF ay u geysteen ciidamadii waqooyi ku sugnaa waxa uu sidoo kale sheegay mana sanayna ilaa kooxda TPLF sharciga aan ka horkeenno isla markaana ay wajahaan ciqaabta ay mudan yihiin waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaaruhu sheegay ama uu dadka reer Itoobiya u sheegay in uu u xaqiijinayo in aanan wada hadal wax la dhaho aysan ka galaynin dagaalkan ilaa waxa weeye kooxdan sharciga laga horkeeno ma jirta buu yiri wado iyo maartay qorshe aan wada hadal ku galayno ilaa kooxda TPLF aan sharciga ku horkeeno ciqaabta ay mudan yihiin la marsiiyo waa qoraalkii hore ee ra'iisul wasaaruhu xalay uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka ee ku aadanaa dagaalkaasi uga hadlayay iyo soo kale cadaasiyada dhanka caalamka ka imanaya ku aadan in waxa weeye dagaalkan la joojiyo wada hadal wax lagu xaliyo isla daqiiqado
iyada oo maaragtay arsac gudaheed aan la gaarin ra-iisul wasaaruhu mar kale qoraal ayuu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka oo uu maaragtay uga hadlayay isla dagaalkaasi waxa uu shacabka Ethiopia ugu baaqay in ay deegaanadooda ilaaliyaan taas oo muujinaysa cabsi laga qabo in TPLF ay meelo kamid ah dalka Ethiopia oo deegaanada kale dalka ah in ay waxa weeye falal amni darro ah iyo dagaalo inay ka fuliso wuxuu sheegay ama ra-iisul wasaaruhu uu yiri kooxdan waqtigeeda waa gabaabsi wayna si maartay dhamaanaysa oo dagaal baa ku socda waxaana ka digayaa buu yiri inay burbur ka sameeyaan qaybo kamid ah dalka ama deegaanada kala duwan ee dalka shacabkan waxaan ugu baaqaynaa buu dhahay in deegaanadooda ay ilaaliyaan oo amnigiisa ay si dhow maartay lama amaanka ula shaqeeyaan iskana ilaaliyaan cid kasta oo amniga khalkhal gelinaysa ama maartay ku abuuraysa waxa uu mar kale qoraalkan qayb dambe uu ku yiri ballantan waa inaan sharciga hor keenaa kooxda TPLF marka qoraalada ra-iisul wasaaraha iyo markuu warbaahinta la hadlay waxaa moodaa inay ka go'an tahay inuusan isagu diyaar u ahayn waxa la dhaho wada hadal ilaa meesha laga saaro TPLF warbaahinta Al Jazeera oo kaleete waa warbaahinada caalamiga aad wax uga qoraya dagaalka dalka Ethiopia ka socda warbixin ay ka qoreen waxay ciwaan uga dhigeen muddo inta leeg bay Abiy ku qaadan kartaa inuu ku soo gabagabeeyo hawlgalka military ee uu ka wado deegaanka maartay ama maartay ismaamulka Tigreega xaaladdu marka halkaasay maraysaa ilaa hadda cid xaqiijin karta sheegashada dawladda ee ku aadan in maartay ciidamo 550 gaari oo Tigreega ay leysay ma jirto shalay waxa baraha bulshada ilaa xalay soo dhigayay muuqaal ciidamo la sheegay inay socdeen oo ay ku laafiyoonayeen garoonka iyo waddo muhiim ah oo ku taala magaalada Humera oo ku taala xadka Suudaan iyo Eritrea Ethiopia la wadaagto waa mid kamid ah goobihii aadka la isugu farasaaray ciidamada oo dagaalka adag oo ku dhaxmaray oo muddo ay ku dagaalamayeen mar horena dawladda ay sheegatay laakiin wararka qaar ay sheegayeen in wali aysan jirin macluumaad iyo cadeymo ku filan oo la xiriira in dawladda halkaas ay gacanta ku dhigtay laakiin shalay dawladdu ay geysay wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee Reuters kuwaas oo ay wagol lahayd dawladdu inay tusto meelaha ay kala wareegtay TPLF ee dagaalada ka socdeen ee Humera ciidamada marka oo waxa weeye waxa la soo bandhigay ku socda waddo laami ah oo ah waddo muhiim ah la sheegay in Tigreega laga qabsaday iyo dawladdu sida ay xaqiijisay garoonkii diyaaradaha ee Humera oo iyadu ay la wadaagtay goobahaas oo kamid ahaa meelihii aadka la isugu hayay ee ciidamada ay ku dagaalamayeen ilaa hadda dagaaladu wali way socdaan cid maartay guuleystay iyo cid laga guuleystay oo la xaqiijin karo ma jirto labada dhinacna guulo ayay maartay kala sheeganayaan Tigreega qoraal ay godho soo saareen oo bog ay ku leeyihiin Facebook ay soo dhigeen waxa ay ku sheegeen in guusha iyaga ay la jirto isla markaana ay ka guuleysanayaan kooxda ama maartay cadawga weerar ku soo qaaday oo ay ula jeedaan xukuumadda iyo hawlgallada uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo iyaga ay aaminsan yihiin inuu yahay nin sharci darro wadan ku jooga oo muddaxileedkiisii uu dhamaaday daawadaasha mar walba la wadaagi doonaa halka uu wax marayo iyo sida uu maartay wax u socdo iyo dagaalkan waxa weeye kolba maartay wajiyada kala duwan ee uu yeelanayo sida muuqata waxa moodaa wax badan oo laga cabsi qabay hadda saasaantiisi inay muuqato oo ah dagaal sokay dalka Ethiopia inuu ka dhaco oo barakac u yimaado oo dad badan ay barakacaan ilaa hadda sida dhanka Suudaan oo kale waa meelaha ugu badan ee dadka ka barakacaya dagaalkaasi ay gaarayaan ka cararaya waxa weeye musiibadaas iyo gulufka iyo weerarada iyo dagaalka halkaasi ka socda dadkan oo hadda dabcan kumanaan gaaraya waxa laga cabsi qabaa inay intaas ka sii bataan Suudaan waxa la sheegay in xiriir qaxooti ay sameysay taas oo waxa weeye dadka ka qaxaya dagaalka qoyga Ethiopia ka socda lagu maartay waxa weeye la geynayo ama lagu qaabilayo qaramada midoobay waxa ay ka digtay musiibo bini aadanimo oo ku soo fool leh Ethiopia oo ku aadan dagaalka halkaasi ka socda cadaadisyo kala duwan ayaa jira iyo baaqiyo caalami ah oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo dawladdiisa loo jeedinayo iyo dhanka TPLF ama Tigreega oo ku aadan dagaalka in la joojiyo isla markaana wada hadal lagu xaliyo laakiin ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu meesha ka saaray waxa la dhaho wada hadal in la galayo ilaa TPLF meesha laga saaro oo la burburiyo sharcigana la horkeeno madaxweynaha dowladda Soomaalida oo Mustafa Maxamed Umar oo isagana BBC-da la hadlay waxa uu sheegay in 100% iyaga sidoo hore uu sheegay ay taageersan yihiin ayna soo dhaweynayaan talaabada ay dawladda federaalka ay ka wado waqooyiga Ethiopia wuxuuna sheegay in kooxdan wadda kasta iyo dhinac kasta iyo qorshe kasta la isku dayay si hawsha loo xaliyo wada hadal
looga saaro ama wadahadal looga galo khilaafkii taagnaa laakiin ay diideen wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu dulqaad muujiyay 2 sano iyo barkii dalka uu hogaaminayay oo ku aadanaa in waxa weeye kooxda wadahadal la galo isla markaana madmadowga iyo khilaafkii jiray meesha laga saaro balse iyagu ay ka dhaga adeegeen waxa ay doonayeen ay ahaydun in maartay dhibaato dalka ay ka abuuraan dhibaatooyinkiina ay sii wadeen 22 sano dalka ay waxa weeye maamulayeen dhibka ay geysteen 2 sano iyo barkii hadda isbedelku dhacayna ay dhibaatadii mid lamida ay sii wadeen halka uu yahay oo kaliya in kooxdan waxa weeye la burburiyo oo meesha laga saaro si shacabka Tigreega loo badbaadiyo maamulna loogu sameeyo dadka Tigreega marka waxa moodaa sidoo kale madaxweynaha dowladda Soomaalida waxa wax lagu weydiiyay inay jiraan ciidamo dowladda ka tirsan ama kamid aha oo waxa weeye ama kuwa gaarka Liu Booliska oo loo diray halkaas waxa soo bixi maalmo dhaweyto warar ku aadanaa in ciidamo halkaasi ay gaareen waxa uu sheegay in aysan jirin ilaa iyo hadda wax ciidamo halkaasi loo diray oo ku aadan waxa weeye dagaalkaasi inay ka qayb qaataan horena uu sheegay wax baahiyana aysan jirin laakiin Itoobiya ay ka tirsan yihiin oo ay wixii maartay soo gaara ay qayb ka yihiin laakiin ay ku mashquulsan yihiin sidii xuquuqdii dadka Soomaaliyeed gobolka ay uga helaayeen dhanka federaalka ilaa haddana aysan jirin baahi ciidamada gaarka ah Liu Booliska deegaanka loogu diro halkaas inkastoo ay jireen warar kale oo waxa weeye dadka qaar ay sheegayeen in ciidamo halkaas loo diray kuwa gaarka ah deegaanka Soomaaliya ka tirsan laakiin ma jirto ila madax banaan oo xaqiijin kara 100% inay jiraan ciidamo halkaas loo diray sidoo kale la beenin kara hadallada ka soo yeeraya ismaamulka dowladda Soomaalida iyo madaxdiisa oo madaxweyne Mustafa Cumar ugu horeeyay ku aadan inaysan dan maartay qorshuhu ugu jirin in ciidamada halkaas loo diro isla markaana aysan jirin wax baahi ah oo loo qabo hadda oo ah in ciidamada dowladda Soomaalida ay ka qayb qaataan dagaalka ka socda gobolka Waqooyi ama maartay Tigreega وهاجاك داود يال أدي ومهسينها الكعسة وحول بقى كوسو كرنا دجالك كسعود دلك إثيوبيا وحد كده وندون تام برنامج جدا نكلا بس أنت هنكون كل مدة برنامج كان حاجة وحنا ذيك كتجينا سيدا سينا بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.